Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada akhyaarta meel kastoo dunida ka joogteen. Waxaa noo socday barnaamijkeena taanaha baro dalkaada hooyo qaybtii afaraad. Maanta qaybteena waxay ku saabsan tahay wax iska aabintii lagala hor yimid gumeystaha. Iska aabintii lagala hor yimid gumeystaha waxay bilaabatay markii uu dalka soo galay oo dad badan markiiba ay ka hor yimaadeen iyaga oo fahansanaa ujeedada qarsoon ee gumeystaha reer Yurub. Waxayna socotay ilaa dabayaaqadii qarnigii 20aad inkastoo ay jireen dhowr iska aabin oo magac ku leh dadka Soomaaliyeed. Haddana midka ugu caansanaa waa iska aabintii ay gumeystaha kala hor yimaadeen daraawiishtii oo ahayd urur adeystay la dagaalanka gumeysiga. Marka laga soo tago kacdoonkii daraawiishta, waxaa jiray kacdoono kale oo dalka Soomaaliyeed aan ku ahaa sida kacdoonkii Sheekh Xasan Barsane ee ku dhacay meel u dhow magaalada Jowhar, kacdoonkii Sheekh Bashiir ee ka dhacay magaalada Burco, iyo kacdoonkii Biyomaal ee ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose. Kacdoonnadaasi looga soo horjeeday gumeysigii dhulka soo galay waxa ugu weynaa uguna caansanaa kacdoonkii kooxdii daraawiishta ee uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. Kacdoonkani marka aad u fiiriso wuxuu ahaa mid isku dhex miran oo ay hogaaminayeen wadaado diimeed, dhanka kalena dadka ku kicinayay wadaniyadda iyo daljeceelka. Waa maxay ujeedada loo aasaasay daraawiishta? Daraawiishtu waxay lahayd laba ujeedo oo waaweyn, kuwaas oo kala ah in wadanka laga saaro gumeystaha iyo in la dhiso dowlad ay Soomaali leedahay oo wadanka ku xukunta shariicada Islaamka. Daraawiishtu waxaa aasaasay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan waxaana lagu dhisay dhulka loo yaqaano Nugaal. Ujeedooyinka loo dhisay waxaa ka mid ah in gumeystaha wadanka laga saaro. Sidaasi loo gaarin waxaa laga maarmaan ahayd in maskaxda dadka Soomaaliyeed lagu beero wadan jecel iyo inayna aan gumeystaha kana hor yimaadaan. Fikirkii ay huuneyd markiiba wuxuu si degdeg ah ugu faafay dhammaan dhulka Soomaaliyeed, gaar ahaan meelihii ay daraawiishta ka howlgalaysay. Halgankii daraawiishta wuxuu socday in ka badan 20 sano. Madhab ahaan, daraawiishta waxay aaminsanaayeen madhabka Saalixiya oo sida la sheegay fikirkaasi waxaa dalka Sacuudiga kala yimid Sayid Maxamed Cabdulle Xasan oo wadankaasi wax ka soo bartay. Daraawiishtu waxay lahayd garab militari oo dagaal u diyaarsan mar waliba inuu duulaan ku qaado gumeystaha, gaar ahaan Ingiriiska. Nidaamka maamul ee daraawiishta wuxuu ahaa nidaam dhexe oo waxaa udub dhaxaad u ahaa Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. Habka nidaamka kala sareynta isaga ayay wax waliba ka go'ayaan, isaga ayayna ku dhammaanayeen. In la khilaafo waxaa loo arkayay dembi iyo hogaamiye oo la khilaafay. Waa mid ka mid ah meelihii ay guuldarrada ka soo gaartay daraawiishtii oo hore looma sii diyaarinin ciddii bedeli lahayd Sayid Maxamed Cabdulle Xasan haddii uu meesha ka baxo ama haddii uu dhinto. Dagaalkii ugu horeeyay ee daraawiish la gashay ciidanka gumeystaha Ingiriiska ee joogay wadanka Soomaaliya wuxuu dhacay iyada oo ciidanka daraawiishta ay ka koobnaayeen 1500 oo askari oo watay 20 qori oo keliya. Inta kalena waxay ku hubeysnaayeen warmo iyo seefaf iyo hubabkii hore looga dagaalami jiray. Taasi waxay ku tusinaysaa in daraawiishtii markii hore aysan hubeysaneen. Waqtiga mar waliba uu sii socdo way helayaan hub iyo saanad ay ka furanayaan adowga ama meelo kale ugu imaanayay. Waana midda keentay inuu ugu dambeyntii ay awoodooda bilaarato, Ingiriiskana ku qasabto inuu diyaarado ku weeraro xaruntii daraawiishta ee Talle. Maxaa keenay inay dadka Soomaalida ay aqbalaan fikirkii wax iska aabinta ee daraawiishta ay dadka Soomaaliyeed u sheegeen? Waxaa jiray dhowr sababood oo la dhihi karo waxay sabab u hayeen in Soomaalida ay aqbasho iska ilinta gumeystaha. Waxayna kala yihiin: 1. Sida ay gumeystaha ula dhaqmeen. 2. Gumeystaha oo lagu tuhmay inuu diinta Masiixiga ku faafiyo dhulka Soomaaliyeed kadib markuu wadanka Soomaaliya ku furay kaniisado fara badan. 3. Gumeystaha oo bilaabay inuu qaato qaar ka mid ah kheyraadkii dalka, gaar ahaan kalluunkii iyo xoolihii dadka Soomaaliyeed. 3dan arrimood iyo kuwo kale oo fara badan waxay saldhig u hayaan in dadka Soomaaliyeed ay aaminaan fikirka daraawiishka ee ahaa in gumeystaha laga hortago si loogu badbaadiyo xoolaha dadka Soomaaliyeed. Kadib markii meelaha qaar lagu dhisay kaniisada ay leeyihiin wadamada gumeystaha ee ciidanka u joogay dalka Soomaaliya, gaar ahaan Ingiriiska iyo Talyaaniga, dadka Soomaaliyeed lagu yaqaanay diin jecel iyo wanaag, waxaa markiiba u sawirantay in haddii hadda laga hortagin fikirka Qur'aan ee gumeystaha uu faafinayo, in maalin aan dheerayn la arki doono dad Soomaaliyeed oo kaniisadaha ku tukanayo. Si xaaladdan looga hortago ayay dadka Soomaaliyeed waxay go'aan ku gaareen in la taageero daraawiishtii lagana hor yimaado gumeystihii wadanka Soomaaliya soo galay, gaar ahaan Ingiriiska iyo Talyaaniga. Maadaama Sayid Maxamed Cabdulle Xasan uu ahaa nin gabiya ah, wuu awood u lahaa in si fudud u gaarsiiyo qalbiyada dadka Soomaaliyeed
sida inuu tooshka ku ifiyo ficilada gumeystaha iyo inuu necbaysiiyo gumeystaha iyo habdhaqankiisa oo aan la socon karin dhaqankii suubanaa ee Soomaalida. Sayid Maxamed Cabdulle Xasan waxaa la dhihi karaa wuxuu udub dhaxad u ahaa bacrimintii wadaniyadda iyo daljaceylka dadka Soomaalida. Sayid Maxamed Cabdulle Xasan markii la doqeeyay xaruntiisa tale waxa uu soo wareegay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaas oo ay ciidankiisa u kala jabeen 3 qaybood: qayb iska tagta oo danaheeda raacda, qayb isaga la xirta, iyo qayb kale oo si dagaalka u sii wado aaday dhankii iyo hogaamiyihii Sheekh Xasan Barsame oo xaruntiisa ahayd gobolka Shabeellada Dhexe, gaar ahaan meesha lagu magacaabo Jilyaale. Sayid Maxamed Cabdulle Xasan wuxuu ugu dambeyntii dhintay sanadkii 1920 wuxuuna ku dhintay magaalada Imey oo hadda ka tirsan maamulka Soomaali Galbeed ee hoostaga dalka Itoobiya. Muuqaalkani shargaray saaxiibada la wadaag antan qaybta shanaad ku kulmi doono. Sidaas nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.